سلام الله عليكم صاحب بيال مال والبود جوكتان يسي والبود يداوان إيسان رمضان ونكسن كنا سود وهذا برنامج كيني بندقة وانا برنامج كبندقة إذا الكيس بوحي نكسو قادم دونا دعدوين كيف وشحوما ساكي دور نمدي مغرب كي إيا واد مودو إن حالكو ودقية لكن وحي دعي مانتون يا برنامج كسو قادم دونا ويا هاي سيدان حالي كسي دقني أو بوغن أن uga دقني سيدو كالي يوتيوب كا qalalaaso iyo isbaarooyin ayaa lagu wadaa in berita doorashada ay saameeyaan waa sidan xalay ka dhawaajinay maanta maxaa dhacay sidaad la wada socotaan saakay ayaa lagu ballamay in guddoon cusub baarlamaanku uu yeesho oo doorashada la qabto ciidamo military ah iyo kuwa booliis ah ayaa jidadkii gooyay walow xildhibaano hubeysan ay xoog ku mareen halka xildhibaanada aan hubeysnaynna dhibaato badan ay ka mareen sidii ay ku gaari lahaayeen afisioni ama teendhada sidii ay ku gaari lahaayeen waad la socotaan kadib maxaa dhacay iyadoo xaalka noocaas murugsan lagu jiro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka soo degay sidan xalay idin sheegay goor hore oo saakay wuxuuna la kulmay midowga murashaxiinta oo ay ka mid yihiin Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Sheekh iyo rag kale ولو تيم كشيخ شريف أي يجو برهود بالشدة أو استعماليا إن شيخ شريف وهو جامنا يواسكنا عضي إن كمية هاي وحلو جول استي إن مدوجي مرشحين تأيير رئيس الوزراء أو وضع الصعداء أي جد أي كمران وليبا جار الآن أو أي لويان إذا مدي بوليس كي عرق الله سمينا ينا أي هالكاسي كليحيين وليبا سيجي سينمالي إنت صحي كدم بيجي رجي كفر قلبيت أو فرماجو وكوحني بميل جار لفت جارين يفرماجو ayaa maqlay in xildhibaanadii la sii daayay kooramkiina uu buuxsamay ra'iisul wasaarihii midowga murashaxiintan ay xaliyeen marka waxaa dhacday in haddana balaan cusub lala yimaado mar haddii carqaladii hore ay ahayd isbaaraha la dhigto oo yaan la gelin teendhada mar haddii ra'iisul wasaaraha uu ku guuleystay midowga murashaxiinta waxaa la keenay haddana ajando kale la keeno la leeyahay war koonfur galbeed iyo kudlada nisa meesha haddii marba ay kooramku u buuxsamay oo guddoomiye baarlamaan ay qabsan karaan bal aan tagno wejiga labaad ee rabshada iyo isbaarada aan sameeyno meesha aan rabsho ka kicino hadda inkastoo la leeyahay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wuxuu wacad ku maray in xildhibaankii fidno iyo qalalaasa ka sameeyay halka uu gacanta jabin doono hadda waa gacanta bash waa wasaaradda amniga ila ku dhow sida ay xaqiijiyeen laakiin fidnada bilowgeeda xildhibaan shubka waa taqaana waxa uu taagan yahay xildhibaan sida aniga camal aan loo soo marin habraaciisa doorasho halkan ilama joogayo oo ula jeeday xildhibaanadii Ceelwaaq ma yimaadeen waa ka jawaabi doonaa iyagana kulay su'aasha aan u daayay shacabka waxay tahay ka waran isaga shubka sidoo ku yimid ma xalaal buu ku yimid mise kursiga waa loo xiray waayahay xildhibaanadii Ceelwaaq iyo xildhibaanadii Garbahaarey sida la ii xaqiijiyana 32doodaba way ku jiraan hooyga afisioni ama teendhada warar lagu kalsoonaa karana waxay leeyihiin aqlabiyada ugu badan ee xildhibaanadu waxay u codeeyeen in 32daaba laga saaro shirka iyo sadan u tahay waa su'aasha waayahay intaas markii ay mareyso xaalku wuxuu u muuqday gudoomiye Dhamanacad iyo tiimkiisa doorashada qabanqabinaya si wacan bay howshooda u qabsadeen oo afurkii xitaa way sameeyeen suxuurtu waa diyaar oo waxay leeyihiin waynu ku adkeysan doonaa inta laga gaarayo miraha natiijada doorashada inaan u dhabar adeegno shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waayahay markii hoolka shirka kooramka buuxsamay inkastoo fidnaba laga yaabo inay dhacdo caawa oo gacan ka hadal dhaco laakiin waxay u badan tahay in dhabar adeeg ay suubiyaan Dhamanacad iyo tiimkiisa waayahay kadib maxaa dhacay Roble ayaa goor hore oo galabta ah isugu yeeray saraakiisha ciidanka sida Beliska Farxaan Qaroole iyo taliyaha Nisa ee ku meel gaarka ah Yaasiin Fari Farxaan waxa la amray sida la ii sheegay in teleefankiisa gacanta iyo gacanka booliiskaba uu iska soo dhigay wuuna aqbalay uu xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu haatan ku sugan yahay halka taliyaha Nisa Roble uu amray in uu si toos ah u aado teendhada codkiisana uu muujiyo waayahay intaa wixii ka dambeeyay kulli hadda in loo fadhiyo halka wax ka dambeeyay ma jiraan laakiin hadalka baraha bulshada loogu hadalhaynta badan yahay ayaa ah markii Cali Jeeb ku jiro uu soo qoray qoraal uu ku leeyahay raggii Garbahaarey way codeynayaan abwaan guure ayaa maanse cajiib ah ku soo qaatay barta uu ku leeyahay mareegtada uu ku leeyahay Facebook waxa uu leeyahay Cali yar oo la hadlayay bal ila dhuux maansadan haddii neefku dhinto waqtigiisu dhammaado kuma sii dhaganaato shilintu way ka
كدكتاي دوك ميادن لهين ويا برنامج كان بندقة انتاس اينا كسو قبقبين دونا هدوه بسامحو وحي ابديت انا برتن يسيدو كالي جنالك يوتيوب اياد كلا سعون دونتان هدي اد لا دحسن تاي برنامجين ابديت كاه يتلاقوين كحلبانada baarlamaanka Soomaaliya ay qaadayaan iyo geesinimada ra'iisul wasaare Roble iyo ragii saakay xoog ku maray jidgooyinka Hadooley Mahad Salaad dhacdooyinkaasi u muuqdo mid guul leh muuqaalkan like sar nabad galiyo